naag saaxiib ma gasho naagaha dhaho adulle We do it for the love and I do it for the likes. Do it for the love and I do it for the likes. Do it for the love and I do it for the likes. Do it for the love and I do it for the likes. Make them know success don't come overnight. No make them know a substance over hype. السلام عليكم كولبا على فاتا ABCD 1 2 3 وانيغو أفرتون مالين عصب أركت عصب كسو دو channel كيغا هادات كيش فيديو غان لايكي تابو رأي هدارتنا ديوتيد كومنت كوكسو قور أركت سان عمل هدارتي سبسكرايب كليكوسي مالت فيديو وحوكو سابسين هاي دالما وحاوا إلا تالي confession وحاوا قفو حيو قرانايو داد كان مقعانا أو بحصدو مركا هنو بلاوتو qofkan koowaad waxa u bixinayna ladan waxay tiri assalaamu calaykum abaayo waxaan ahay gabar waxaan deganahay meel hebel waxaan jiraa 32 sano aniga waxaan xiriir kula jiray wiil muddo 2 sano ah waan isku tarax tagnay oo wax baan sameynay kadibna uur baan yeeshay waxaan talada saartay hooyadeyda anoo wiilkii u sheegin hooyadeyda markaan u sheegay dhibka jira waxaan isku darsanay talo waxaan igu talisay wiilkan haduu i rabo wuu i guursan lahaa maadaama uuna i guursanin oo hadda waxaan dhaceen ayadana ayna ka helin waxay igula talisay in aan oolaada iska soo bixiyo wax badan kadib waxaan go'aan ku gaaray inaan oolaada iska soo bixiyo anoo taladeeda ayada qaatay hadda waxaa laga joogaa muddo 4 sano ah aniga waali guursaday wiil kala baa calaf ii galay dhibka jira waxay tahay hooyadeyda iyo aniga markaan isdagaalno waxay i tiraahdaa waxa tahay xaraamiyad oo ilmo iska soo xaqday oo zinaysatay wax kasta ay igu tiraahdaa oo igu liidi karto laakiin taas baa markasta i gubta in hooyadeyda ila talisay inaan oolaada iska soo saaro inay hadda i tiraahdo waxa tahay ma dhasho maadaama ilmaha iska soo xaqday aad tahay naag zinaysata markasta igu aflagaadeysa ninkeyga dhowr mar buu i weydiiyay hooyada maxay saas u tiraahdaa anigana waxaan ku jawaabo ma aqaano oo waxaan iraahdaa carad daraadeeda iyo afxumay ka tahay maxaa igula tali laheed xiriirka hooyaday aniga wuu liidmay mid xumaaday buu noqday maadaama ay markasta taas igu cayso ila tali markasta hooyada waaye mala kala go'aayo waaliday ku tahay waalidna cizi sharaf ay nagu leeyihiin ay ahaan waxa ku dhihi lahaa la fadhiiso la hadal tus xumaatada ay kugu hayso iyo hadalaheeda kulkulul dhaawac ay ku gaarsiinayaan hadaa isfahmi weysaan waay maaho guurkaaga saa ku badbaadisid oo dambigaaga lagu ogaanin because ceebtaada meena ku qarin infaanti hooyo mila wanaagsano marka hadal hadaa la hadashid hadalka dhageysan weyso aflagaadada wili wado oo ninkaaga ku weydiiyo hadana guurkaaga qalqil ku jiro maamo kasto waxa la arki jiro cunugeeda bullshit inay tiraahdo oh fantastic brilliant my son my daughter is amazing laakiin maamo dhehayso the use waayo waxaasay samaysay way adag tahay marka inta xiriirka gaabi kartid adoo caasi waalidiin noqonin gaabiyaan ku dhihi lahaa macnaha ninkaaga iyo hooyada kala qarqari si dambigaaga loo ogaanin hooyana la hadal waxa tiraahdaa hey waqdadu way sii weynaanaysaa hey biyo daato wax laga ma qaban karo please stop hadaa dhalayn taas me and God naga dhaxaysaa waxaan sameeyay me and God naga dhaxaysaa guur cusub baan ku jiraa new life new beginnings naagta sheegaysid maybe ihiba that's not me maybe maalin hadday kugu soo qaado hadaa in kartid ka waran naya adiga saas samay hooy maxaa ka hadlaysaa hooy dimension ma kugu soo socoto are you going crazy who's that xaaji walaahi waxay ka hadlaysaa hooy ma aqaane we need to take hooyo to GP ga ka yaabso dramatic hooy walaahi caafimaadka in la soo check gareeyo waxa ka hadlaysid aniga ma oogi jiliin dhac ku sii ka naxsan hal maalin maybe she will stop but talada dhankiina waa comment-ka ku soo qora maxaa bay kula tali leedeen ani taladeed waxa waay ninka iyo hooyada kala qari oo dadda ku haysan hooyada u sheeg taas haday fahmi weyso ma aha agtarad noqo qofka kale qofkan kale waxa u bixinaynaa Cusmaan wuxuu yiri xaajiyadeeda waan ogahay in ay ku dhalanin midabka ay leedahay markaan guursaday kadib baan ogaaday in ay tahay dumarka is cadeeyo aniga ahaan ha is cadeysa maba xume hadda waxay bilaaday in uu goonkeeda
uu isbedelo oo chemical ay kasoo urto sida xaaskeyga ugu sheegay taas waan garan la'ahay haddee midabkeeda caddahay ama ay madowdahay aniga waan ku rabaa laakiin udgoonka waa u dulqaadan la'ahay midda kale waxaan ka baqayaa in ayada nafsadeeda hadhoodii halis ay gasho bacdan iyo waxaan laisku dardaray ee marsanayso abaayo ila tali walaalow gacali walaahi aniga taas tala aan kaa sii kara haba yaraatee ma jirto because problemka hadda jiro waxay tahay doqon iyo habeenaa madoob seriousa loo qaatay horta waxaa soo ogaaday sheekadaas inayna wax ka jirin maamaha jirto ma aha maamaha dadka is cadeeya ee alifteen waaye waan igu soo qabta taas meel ii dhig taas haddii laga soo gudbo wixii sida hore ma aha waagii horeeto dadka markay rabaan inay midabka iska bedelaan oo uqdad ay gasho insecurity waa dareemi karaa insecurity qofba meel uu ka gali karaa qof wuxuu ka gali karaa dhirarka qof cayilka qof indhigiisa qof lugihiisa uqdad iyo insecurity ma jirto ma ku dhahayo oo kalsooni buuxdo qof kasta qabaa ma ku dhahayo anaga dhan meelo aad jiro aan rabi lahayn inaan iska bedelno dadka marka awal way qarsan jireen midabka markay rabaan inay iska bedelaan hadda laakiin wixii waxay noqotay normal tiktoka gale 100 hablooda arkaysaa oo promote gareenayo oo dhahay kan marso kan yeel doqoni habeena madow gloves xiro sunglasses xiro kan xiro wixii normal oo noqday soo hadda la taliso xaaskaaga aad tiraahdid hey waxaan kansar ku keeni doonaan waxaan long term dhibaato oo ma aragtay oo jirka ay ku keeni kartaa oo qarash badana ka galaayo udgoonkaagii wuu isbedelay dadka way dareemayaan inaad is cadeyso cause dadka qaar is cadeeyo waxay aaminsan yihiin in la fahmaynin but please hal talaan siina tan inaan ku taliyo xataa qalad ay u tahay laakiin abaa kareenka wajigaaga marsateed ma ku haboon inta inaa marsateed cause inta is harder than enter wax kala fujiyo adag raaso because how are you light here intan qof kale marka saan tiraahdo waxa lagu moodaa qof kale inuu rabo inuu ku afdoobto like this and this kala do my fartoon waxaasina ku talisan maaha way qaldantay waa ka gudbaynaa anigu marka taladeedu waxay tahay udgoonkeeda si wanaagsan ugu sheeg waxa tiraahdaa caafimaadkaaga waxaan uma roono anigu kama helo dooqeyga ma aha waxaan inaa samaysid maadaama reer isla samaysanoono oo partners in crime nahnay hal qof nahnay walaalay ka caliso dib ugu noqo kalsoonidaadan dhisa I love you I need you I want you just the way you are maybe dhiirigelintaas inay ka joojiso ani ahaan fartoon waxaa rabaa walaalaha idaawado gabdhaha idaawado inaad dhaho midabkiina is beautiful sidaa tahay qof baa dooqiisa ku tahay cadaantan lagu sheegayo haddaa u dhalatay alxamdulillah haddaa u dhalanina wax kaa maqan ma aha waxaan waa fashion maanta waxaa socoto gabar bari weyn iyo xabad weyn tomorrow waxaa laga yaabaa inay socoto gabar dhax yar oo bari iyo xabad lahayn so adi markasta ma fashion ka la soconay no you have to be unique you have to be you another heblaayo ma jirayso fartuun kale ma jirto xariimo kalena ma jirayso you are you qof unique oo ilaahay sameeyaa tahay so I would suggest kalsoonida in la dhiirigeliyo qofkan dhageysta waxay tiri aniga gabdho badan baa saaxiibo la ahay gabdho waa cadow gabdho lama aamini karo naagna saaxiib ma gasho markasta aan gabdhahan guryahooda tago waxaan isku dayaa in aan masuur ka qaado ayagoo si xun u eg ama qaawan ama xijaab xirneen ama ayagoo daruuf ee ka muuqato sida hadhoodii u isticmaalo haddee dhanka qaldan iga soo aadaan ma rabo aniga inay naag wax igu hayso waxaan jeclahay laakiin naag inaan wax ku hayo saaxiibahaygo dhan waxaan ka hayaa masuuro ama qaawan yihiin ama ay fadara sameynayaan ama wax habooneen ay ku dhex jiraan confessionkaygu waa kaas la bilaa talaa godkeena biyo noogu soo gala mistiraadeen awal waxay eed wiilasha iska ilaaliya nimanka iska ilaalina hooy ninka iska ilaali naahoy FaceTime hagalan adooda asturnayn naaheed yaa cod lagaa duubin adoo faqsi sameynaysid naahoy adoo qaawan qofa u dirin naahoy wajigahay alaabtaada dirin aad gabdhaha lagula tali jiray hadda talada waxay noqonaysaa naahoy ta kuu soo gargaraacdo saaxiibtaada iska ilaali ee faar kugu qabanin walaahi dumarka waa silacsan yihiin we're in trouble we're actually in trouble abayo you're actually sick waa jiran tahay ma fiyoowid haddii noloshaada dhan aad ku jirtid gabadhaan wax ka qaad wax ka duub hadhoodii hadday kugu xumaatay isticmaal you're just showing waxay tusaysaa inaad adiga tahay qof xun
oo xumaata badan aad samaysid aad rabin xumaatadaada hadhoodii adiga in lagugu qabto oo adiga hadhoodii wax lagaa duubo so waxaas dhoosaa collect garay tii wax kaa duubta hadhoodii blackmail garay camal ku isticmaal ba ani waxa ku dhihi lahaa dhaqankaaga xun adiga jooji umada kale ta ha ka noolaato adiga faart iska ilaali umad kale ta faar ha ka raadinne taalaada ka adkoow maradaada ka adkoow wasaqdaada ka adkoow friend ma gashid saaxiib naag saaxiib ma gasho naagaha dhaho adulle energygaas aad dadka gelinaysid walaalay meelo kala geli investigator noqo ama CCTV camerada magaalada Ingiriiska ku xiran ma aragtay oo waxyaalaha duuduubo midaas camal iska dhigo meelahaas report garay like whistleblowing you know wax qalad markay aragto tuug wax dhacay jidadka saas attention-kaaga ha joogo police u report garay taa shaqo ka dhigo umada kale shaqaha ka dhiganin anywho inta ku soo gabagabeynaa qaraabada lagu salaamo waxa isku dayaaya in aan YouTube-ka ka soo muuqdo I love you guys waan jeclahay walaalo waxaad tihiin aan ka maarmin walaal gang meel kasta joogtaan waan duceynayaa in aad cibaado suuban iyo cimri dheer waligiin aad ku jirtaan jannatul firdawsna aan isku aragno sababta taas u dhahayo waxay tahay maanta markaan soo kacay today is Saturday around 10 o'clock soo kacay Instagram-kaygaan furay message-ku ugu koowaada ku kala gareeyay wiil walaal oo ii duceynayo waayo oo idhahayo waa ku duceeyaa waa ku daawadaa way farx gelisaa anoo maanta salaad subax tukanaya qalbigeyga soo gashay waana ku duceynaa si walaaltinimo it made me happy maalinteedo dhan waxa ku dhahay faxfax iyo qeyr iyo barwaaqa ku jira ilaahay iizaidiyo waxa ku faraxsanahay inaan niidiina qof wanaagsan aan ka ahay oo qalbigiina wanaag ay ugu haysaan marka I love you guys I appreciate you jannatul firdawso ano balan adios qaraabada lagu salaamo toros